munaasabada qiimaha lahayd ee lagu xusay sanad guradii 54 ee ka soo wareegtay markii ugu horeysay Jamhuuriyadda Soomaaliland gobonnimadeeda ka qaadatay mustacmarkii Ingiriiska sanadkii 1960 Juun ayaa habeenkii xalay lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland. xafladaasi lagu maamuusay waqtigii ay Soomaaliland gobonnimadeeda heshay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka madaxda golayaasha qaranka gaar ahaan guurtida wakiilada golaha wasiirada madaxda xisbiyada wufuud ka kala timid dalalka dariska iyo kuwa kaleba taliyaasha ciidamada waxgarad salaadiin boqorro cuqaal haween dhalinyaro waayeel bahda fanaaniinta qaybahooda kala duwan iyo waliba marti sharaf kale oo lagu soo casuumay sanad guradaasi. ugaas Aweys oo ku hadlaya magaca qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo waliba madaxdooda sida qiimaha leh ee loogu soo dhaweeyay Soomaaliland. waxaana uu rajeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqoto dawladda ugu xoogga badan dalalka ka jira caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika. waxaana u jeednaa Ilaahay uga baryeena Soomaaliland waa inay noqoto dawladda ugu xoogga badan Afrikada bari haddii ay yiraahdo soo dhaweyntan oo noo soo dhaweyseen oo halkaan ugu soo dhaweyseen ayaa idinkaga mahadcelinayna gaar ahaan madaxweynaha Cismaan Axmed Cismaan Indhoole oo sanadkii 1926 Juun barasaab ka ahaa magaalada Hargeysa gobonnimadana kala wareegay mustacmarkii Ingiriiska ayaa cabiray qiimihii ay maalintaasi lahayd. ilaahay waxaan ugu mahadinayaa inaan 54 sannadood horteed maalintii u horeysay ee dawlad Soomaali ah oo xor ah la asaaso inaan joogay oo aan maraka ahaa maantana aan ilaahay aan ugu mahadnaqayaa inaan weli taagnahay. maalinta wax badan baa dad badani ka sheekeeyeen halka joogtay jaceylku ayuu ahaayo calankaas in uu meesha ka baxo ayaa la sugaayay. ilaahay waxaan ka baryayaa oo aan kuwan maanta joogo iyo kuwa soo socdana u baryayaa inay hantiyaan hawsha markaa la soo maray. mudane xirsi cali xaaji xasan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland oo hadal kooban halkaasi ka yidhi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo ictiraafaysa Soomaaliland kuna taageeraysa horumarka ballaadhan ay sameynayso. cid kasta oo ictiraafaysa oo ku dhawaaqaysa oo muujinaysa inay aqoonsan tahay Soomaaliland oo Soomaaliya iyo geyiga Soomaaliya degto iyo dadka kale caalamkaba ka mid ah waa la soo dhaweynayaa. priority-ga ama muhiimadda ay leedahay aynu u qabno inay qiraan aqoonsadaan garwaaqsadaan bulshada reer Soomaaliland. mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay taariikhdii adkayd ee loo soo maray helitaanka gobonnimada iyo weliba dharaarihii adkaa ee kala duwanaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo martay. 26 Juun 1960 markii ay Soomaaliland madax bannaanideeda ka qaadatay mustacmaradii boqortooyadii Ingiriiska. alxamdulilaahi rabbil caalamiin 26 Juun 60 qaladkii la galay maanta ayaa si dhaba loo saxay. maantaanay Soomaaliland si dhaba u taagan tahay wax ka dhimanina aanay jirin keliya ay u baahan tahay aqoonsiga beesha caalamka oo ku khasban indhaana aan ka qarsan karaynin guushan iftiintay ee geeska Afrika ka iftiimaysa iyo madax bannaanida Soomaaliland. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo halkaasi ka hadlay ayaa mar kale daboolka uga qaaday dalka Soomaaliya iyo cadawga Soomaalilandba in qaranka Soomaaliland uu yahay mid tashaday oo beesha caalamka ka sugaya ictiraaf buuxa. waxaa farxad weyn inoo wadaa kulligeen inaynu maanta u dabaaldegayno 26 Juun 54 sano kasoo wareegtay markii istiqlaalka ay Soomaaliland qaadka ugu horeysay intii aynan u gudbin oo ayna ku darsan
walaalaheenna Soomaaliya dalka Soomaaliland muddo badan buu soo shaqeeyay u soo halgamayay inuu xorriyadiisa helo waxaa jirtay waqtiga caaqifad aad u ballaaran oo ahayd in dadka af Soomaalida ku hadla ee geeska Afrika oo isu wada keeno xamaasad aykaas ayaa jirtay axsaabtii ugadii u jiray ay ku wada shaqeynayeen xamaasadda ayaa geysay markii dambena waa tii loogaa halgankii dheeraa ee u galay la soo noqoshada xorriyadda iyo madaxbannaanideeda maanta waxay nala habboon inala gudboon intii ka dambaysay inuu ku dadaalanay wixii ina soo baray daraadood inaynu dalkeenna iyo dadkeenna dhisano xorriyaddeena la soo noqonno ummaddeena iyo dalkeenna ka dhigno dad iyo ummad la aqoonsay ee caalamka intiisa kaga aqoonsan tahay maanta meel fiican baynu maraynaa wax badan baa dadkanu soo qabsaday meel aad u wanaagsan baynu maraynaa waana kusii wari doonaa caalamku iyo ictiraaf buuxa helin laakiin caalamku wuu nala dhaqmaa dunidu way nala shaqaysaa waxaynu u baahannahay waynu ka helnaa insha allahu tacaala halkaan hore ayaynu ga sii mari doonaa waxaan ummadda iyo dadweynaha Somaliland aan ku gurmaabinayaa waan mar walba leeyahay inaynu midnimada iyo wadajirka iyo wada shaqaynta iyo wadaniyadeena aynu meel uga soo wareejeysano kooxda fanaaniinta qaranka iyo kooda xidigaha geeska ayaa xafladaasi ku soo bandhigay riwaayado iyo weliba heesa ka hadlaya helitaanka gobonimada Somaliland iyo weliba marxaladihii kala duwanaa ee jamhuuriyadda Somaliland ay soo martay iyo weliba siyaabaha kala duwan ee markasta ay uga dabaalaneysay